Madaxweynaha Liibiya Muammar al-Qadaafi waxa uu dhashay sanadii 1942 isagoo ku dhashay degmada Sirta. Waxa uuna ahaa nin madi ah ayna walaalo kala la dhalan. Waxa uu ka dhashay qoys degan baadiyaha. Xilligii uu yaraa waxa uu ahaa xoolo raac. Waxa uu waxbarashadiisii dhanka dhaqanka Islaamiga ahayd ku bartay baadiyaha. Waxa uuna ku soo xifdiyay Quraanka sharafta leh iyo cilmiga fiqiga. Waxa uu waxbarashadiisii dugsiga sare ku bartay magaalada la yiraahdo Sabha, laakiin markii la arkay firfircoonidiisa ku wajahan dhanka siyaasadda ayaa laga ceeriyay dugsigii sare ee Sabha. Waxa uu ku biiray kulliyadda ciidanka ee Benghazi ee magaalada Misraad sanadii 1964. waxa kale ee uu wax ku bartay jaamacadda Benghazi isaga oo darajo aad u sareysa ugu baxay. Kadibna waxa uu boqolay dhanka boqortooyada Ingiriiska oo uu tababar u aaday. Waxa uu ahaa nin aad u neceb gumeysiga reer galbeedka uu ku hayo, waxaana xus gaar u ahayd sanadii 1911 xilligaas oo ay dileen awowgiis gumeystihii Talyaaniga ee dalka gacanta ku hayay. Noloshiisa waxaa saameyn ku yeeshay hadallada Jamaal Cabdinaasir oo hadalkiisu ahaa mideynta Carabta iyo fogeynta reer galbeedka. Si uu dariiqaas u raaco, waxa uu go'aansaday inuu ku biiro kulliyadda ciidanka 1963 isaga oo tusaale u qaatay Jamaal Cabdinaasir siduu ugu guuleystay hamigiisa iyo hiidadiiladiisa. Muammar al-Qadaafi iyo asxaabtiisa ciidanka ahayd ayaa waxa ay dalka Liibiya ku qabsadeen afgembi aanan dhiig ku daadan 1 bishii Sebteembar 1969 xilliga uu jiray Muammar al-Qadaafi 27 sano. Muammar al-Qadaafi iyo asxaabtiisa ciidanka ahayd ee dalka la wareegay 1969 ayaa sheegay inay dalka ku horumarinayaan arrimaha dhaqaale iyo maamul wadaagga ayaga oo isku magacaabay madaxda golaha kacdoonka. Waxa uuna ku dhawaaqay Jamhuuriyadda Carabta ee Liibiya. Markii uu dalka la wareegay ayaa la dareemay in ay nolosha ka sii raynayso. Sanadii 1977 markii la gaaray ayaa Muammar al-Qadaafi waxa uu la kali noqday taladii dalka isaga oo markaa ku dhawaaqay maamulka shacabka. Waxaana markaa dhalatay Jamhuuriyadda Carabta ee Liibiya ee hanti wadaagga. Waxa uuna ka tanasulay xisbigii kacanka. Isla sanadka 1977 ayaa waxa uu qoray buug la magac baxay Buugga Cagaaran, kaasoo uu uga hadlayo xalinta kama dambaysta ah ee ku saabsan mashaakilka dhaqaalaha. Dadka Liibiya ayaa u arka in uu buuggaas yahay manhajka siyaasadeed ee dalka Liibiya. Laga soo bilaabo markii uu talada dalkaasi la wareegay Muammar al-Qadaafi ee uu inqilaabay Boqor Idriis, waxa uu xiriir wacan la sameeyay dalalka Mareykanka iyo Ingiriiska isaga oo iskaashi dhanka ciidamada iyo dhaqaalaha la lahaa dalalkaasi. Balse xaaladdaas ayaa isbedeshay. Khilaaf iyo carqalad waaweyn ayaa soo dhaxgalay Liibiya iyo dalalkaas, taasi oo keentay in madaxweynaha Mareykanka oo xilligaa talada hayay amray in weerar lagu qaado hoyga Muammar al-Qadaafi. waxaana weerar lagu qaaday magaalooyinka Tripoli iyo Benghazi. waxaana weerarka ka dhacay hoygii Qadaafi ku dhintay gabadhiisa oo la oran jiray Hina. waxaa dhulka lala simay gurigii Qadaafi waxaana ku naf waayay ilaa 60 qof. waxa ayna dowladahaas Qadaafi ku eedeeyeen inuu ka dambeeyay silsilado dilal oo ka dhacay dowladda Ingiriiska. Dowladda Liibiya ayaa lagu soo rogay cunaqabad, taasi oo sabab looga dhigay inay ka dambeysay qaraxii diyaaradda rakaabka ee ku burburtay Scotland sanadii 1988. waxa uu xiriir fiican la lahaa madaxda Afrikaanka, waxa uuna gacan weyn ka siiyay madaxweynihii Koonfur Afrika Master Nelson Mandela xilligii uu u dagaalamayay midabta koorka. waxa kale oo uu isku howlay sidii looga dhigi lahaa qaaradda Afrika hal dowlad iyada oo loo sameynayo hal ciidan. waxa uu kulamo la qaatay madax badan oo ka tirsan Soomaaliya oo uu ka mid ahaa madaxweynihii Soomaaliya Cabdiqaasim Salaad Xasan. sidoo kale waxa uu kulamo la qaatay golihii maxaakiimta Islaamiga ahayd isaga oo madaxda ugu sareysa ku casuumay magaalada Sirta. kadib casuumaadaasi ayaa Qadaafi waxaa daleeceeyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ee xilligaa talinayay Cali Maxamed Geedi. dowladda Liibiya ayaa sida ay qortay sanadii 2006 shabakadda Soomaali Weyn waxa ay siisay 2 gaari oo xabadda ay karin dowladda Soomaaliya, taasi oo ka mid ah taakulaynta ay siisay dowladda Soomaaliya. madaxweynaha dowladda Liibiya Muammar al-Qadaafi waxa ay siyaasad ahaan khilaaf xooggan ka dhaxaysay madaxda Carabta ah arrimo ku aadan sida ay ula dhaqmaan gumeystaha. waxaana xusid mudan
kulan dhexmaray jaamacadda Carabta oo ay isku aflagaadeeyeen Qadaafi iyo madaxda boqortooyada Sacuudiga. Arrimaha ay isku khilaafsan yihiin waxaa ka mid ah duulaankii lagu qaaday Ciraaq, ka aamusnaanta arrimaha ka taagan Falastiin, Darfur iyo waliba Soomaaliya. Haddaad channelka ku cusub tahay fadlan subscribe noo saar, gambaleelkana noo riix si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya oo na daawado. Waa mahadsantihiin.